السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا ولا الجنال كعداك عصب تاي سبسكرايب صار جنبريل كانت تاوسي أي فرين والبا عصب كوسو قادو ما أنت موضوع إنه إحنا نقطعنا كلونك أما ملايقة أو تقانان اللي بعبدتك ومد كم إذا حيوانات أو قديم سيء وعون حتى قديم سيء دين الصورك سجوا بدها يبدوينها عالم ككون ولا مدة كله أفر بقول أصلا وحنا لو قاعد إنه يتران أفر بقول كنت النوع اللي بعبدته كوا سكوك الدوين حجمك موقالك جسمك cuntada iyo dabeecadda wuxuuna ahaa nooca ugu dambeeyay libaax-badeedka afka weyn ee u saaxiibka ah ee Mega Moose waxaana la ogaaday noocan sanadkii 1976 isagoo markaas la arkay 41 jeer oo kaliya waxa macquul ah in aflaanta ku aragteen xayawaankan oo weerar baan ku qaadaya dadka sida darteed ay aaminteen mid shar badan oo naxariisan balse taasi ma aha mid runa maxaa yeelay 450 nooc xayawaankan u kala baxo 20 nooc oo kaliya ayaa dhibaateeya dadka waxaana cadaalad sameeyay lagu sheegay in 12 qof dhibaateeyeen sanadkii waxaana dadkii ugaarsan dadkii ay u badan yihiin sawirada kula galaan fata sida dhacday sanadkii 2000 balse taa beddelkeeda dadku waxay dilaan 10,000 oo libaax badeed ah maalintii sida uga ganacsadaan libaax badeedka cad waxaa la sheegay inuu ka mid yahay ugaadiyadaasha kuwa ugu halista badan ee wuxuu dhererkiisu gaaraa 6 mitir halka culeyskiisa lagu qiyaaso 2270 kilogram waana mid jecel cimilada dhexdhexaadka ah isagoona ku nool 270 mitir marka loo daadego gunta hoose badda wuxuuna awood u leeyahay dhiiga ku daata badda inuu ka ogaado fogaan 5 kilomitir waxaana taariikhda ku xusan ciidan badeed Farisiyiina in weerar ay ku qaadeen koox libaax badeedya ay ku qaadeen weerar baan kadibna ay feentay dhamaantood waxaana la sheegaa in arintani dhacday qarnigii shanaad ee miilaadiga lagu sheegay daraasado dhowr ah mid dhadiga waxay awoodaa inay taran samayso iyadoo garab ka yeelay midka labka ah saynta dambe waa mid muhiim ah libaax badeedyada waxaynu adeegsadaan ugaarsiga waxayna leeyihiin ilka aad u afaysan waxay ilaahay ka gaaraan dooda soodon kala sano waxay lumiyaan wax ka badan 1,000 ilig balse iligka ka dhac wuxuu ugu soo baxaa 8 maalmood kaliya waxa macquul ah inay looraadaan 6 maalmood oo cunto la'aan ah waxaana lagu qiyaasaa ilkaha ay leeyihiin 45 ilaa 50 ilig waxay dhammaantood ku leeyihiin xagga hore marka laga reebo 7 ilig xagga dambe ku taala wajibayn inay mar walba socdaan biyaha oo ay dhex jeexaan biyaha haddii ay socodka joojiyaan ugu dambeyn way dhintaan waxay ku dhow inta badan ku nool yihiin madweynada degan iyagoo inta badan cuna kalluumada waxay leeyihiin koronto dabiici ah oo dareesiisa xayawaanada ay ugaarsanayaan xitaa haddii ay dhaqdhaqaaq yar sameeyaan libaax badeedka ugu boodinta dheer waa mid lagu magacaabo Marco kaasoo awooday in biyaha badda uga soo fogaado 10 mitir